بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد الصومال الآن ميل ورين شوغان با دبدي يقولو دلك قبيلات أوردان يدلوها عاصمة قلبك يوم نيدها لمسول ويسين دل شعائر كينا هي إلالتها قرنوضة إلال الإنسان هدي أن وفتك أنها آد باردي كما هضبين walaalayaal waxaan la soo noqonnay warsan iyo weersan dadka Somaliland iyo inta Somaliland jecel iyo inta xaqa u hiiraysa safarkan wuxuu ahaa mid guul u ahaa oo taariikhda gali doona cadawga Somaliland wuxuu ahaa mid dhabarka ka jabiyay oo ka lixiyay walaalayaal haddii in badan oo soo halgabaynay iyo sanado badan oo halgan naf iyo maal baa soo horay iyo sanado badan oo dalka dhisaynay oo ay dadkeena nabadaynay iyo sanado badan oo inta dalka dhisnay wixii dawladnimo wax badan dhinaayeen oo dadkeena u adkaysanayay oo qof wada Soomaaliyeed qurbaha jooga ama dalka ha jooga u dhaladeeyay maanta waxaan ugu bushaareeyaa shalay haddii dadka qaarkii ama dowladaha waaweyn super powerkii ay dhahay laga leeyahay dowladii adduunka ugu weyn inay maanta inay soo jeedaan oo deedeys idina goobjoog maqlagihiin oo maqlay aragiin oo warkay wixii ka dhacayay dalka Mareykanka walaalayaal shalay haddii hadalkeena aan aad loo dhageysanay oo dhagaha cadawgeedu uu ka haystay dowladaha waaweyn maanta waxaad arkayseen iyada oo dhagaha dowladda Mareykanka ay aad u raacayeen oo dhageysanayaan codka Somaliland iyo dalkooda walaalayaal hadday dad badan oo hore uga jireen waxyaalaha dabaysha xaggalayna haysaa waxba inaga siya waxaan ku bushaarayaa maanta dabayshu inay dabdalka inaga hayso inay riixayso oo loo hore socda guushu way dhalahay walaalayaal waa arkayseen waxaan ka maqnay muddo dheer cisho laba cisho saddex cisho la socday dhexda lagu jiray mooyaane intii kalena hawl galay waxaanu galnay 23 shir oo aan galnay waxyaha kala duwan ee dowladda Mareykanka iyo baayac-musharkooda iyo jaamacadahooda iyo macahadooda baarista iyo hal shir oo jimcada ka dhaxayso New York ah inta waxaa noo dheeraa intaa inka yareen oo habeenaya maalin ah oo ugu badnaayeen dadkii Somaliland jeclaa u halgamay ee qurbajooga ahaa oo meelo badan isaga yimid gaar ahaan dalka Mareykanka dhammaan isaga yimid iyo Canada iyo qaar wariba meelo kale ka soo duulay intaas todoba ka maqnay gabal iyo waa hawl culus oo laakiin aan laga daalay naftu jeclaysanaysaa wadi waxaan dhageysanaysaa oo aragteen maanta dowladda Mareykanka oo dowladeedu ay aanu ku wada hadlaynay dalka Somaliland iyo wuxuu soo maray waqtigiisa arna goobjoog baanu ka nahay waxayna soo fareenay naga sugayaan maanta waa ictiraaf oo qura bariyadu kuwa naariman waxna sideedu kuwa naariman la taageeradu kuwa naariman inta baan naga dhisanay ummadaas xaq waxa weeye dowladda qaranka weyn baa tiiray ictiraaf hawlahaas loo dhameeyo waxaanu si diyaar u nahay inaanu wax wan oo nabadooda qabsaanba idila qabsano annagoo karaama iyo ixtiraam oo is qadarina inaynu wadaagno wax walba oo ka mid yihiin koow hadday siyaasadda guud tahay hadday nabad tahay hadday amniga bariga iyo badda tahay hadday mushtar tahay hadday tahay waxbarasho iyo isdhexgal bulsho intaba waxaanu diyaar u nahay inagoo nabadooda is qadarinaya inaynu wadagalo oo hawsheedii bilowno oo aynu qalbiga wada qaadano oo dowladda jira loo bilaabo maanta waxaan ku yeelay inaan albaabka idin furo oo aan u baahanahay inaan iskaashado dowladda taas aan idin sidaa oo idin arkaysay walaalayaal waxaad goobjoogtiin oo wada haysaan telefoonada iyo internetka wada haysaan in dowladda Mareykanka labadeeda gobol baarlamaan senatorska iyo congressku ay laba sharci
oo ku farayaan dowladda in degdeg Somaliland wax loola qabsado oo si weyn loogu dhawaado ay farayaan dowladda waxaa arkayseen xeerar ama fariimo loo diraayo oo gabayaasha Mareykanka u dirayaan muddada yar ee aanu joognay in ay dowladda arrimaha dibaddu si weyn wax ula qabsato oo hawlgasha Somaliland iyo cidda u soo maraynin waana tallaabo maanta inoo kooba iyo albaab noo furmay waxaanu idiin sidnaa oo aanu ka soo celinay caalamka maanta shirkeedii iyo shiragaanu ku jiray iyo fariintii aan qarankana noo dhibay ee distoorkuna faray ee qaranku noo dhibay qadiidada gaarsiiya ummadda weliba meelaha ugu waaweyn jimcada qurumaha ka dhexaysa Mareykanka in maanta intaanu geynay weliba miidiyaha Mareykankuna aanay ka warwareegin maanta af kasta oo adduunka lagu hadla laga dhageystay iyo dal walba oo adduunkaada oo ay gaarsiiyeen miidiyaha Mareykanka walaalayaal iyadoo caadi kurashahay idinkoo wararka intiisu badad hayay waxaanu maanta inoo sidnaa inuu inoo furmay xiriir cusub oo bilow ah oo laakiin dowlad iyo dad bay looga baahan hawl badan Mareykanku iyo dadkaan dhegeysanaya intaasoo loo sameeyey shir iyo faasilita maxay noo qadarinayeen annagu ashkhaas baan nahay waxay qadarinayeen shacabka Somaliland meel jooga gudaha iyo dibadba iyo halka ay soo galeen iyo dalka ay dhisteen iyo tala wadaagga iyo dimuqraadiyadooda iyo in madaxdooda doortaan iyo in wixii looga khilaafkooda xaliyaan oo u dhabar adeegeen duruufaha adag ee haysta qadarinta ku mutaysateen hawsha ay soo galay ee shicibkooda ku mutaysay ayaa lagu qadarinayay oo anaga lagu ixtiraamayay idinka lagu qadariyay lagu joogay waxa loo baahanahay inaynu halkaa ka sii wadno maanta meel ilaahay lagu mahadiyaabaynu joognaa waxaynu caalamka oo dhamme maanta dal kasta iyo af kasta laga dhegeysto laga hadlayaa qadiyadda Somaliland waxa ku xiga iyagoo ictiraafka inoo muuqda maanta maalintii hore halkan aad ku imid ee aan kora kale ka imid ee cilaaqaadka qolada xamrooyeysa waxaynu ka wada qaaday halkan ay taagnay إذا ما نقولنا أدوك الدولة بولتجنا عالم كهون طول بولتجنا قدرنا وهرنا إذا ما نبغى علاقات كوتشرة ما ترى ملاك كوتشرة هذا يكون عيان كذا هو كوتشرة هذه أقدركم هذا غيره وقت حساب شكر الله على العيد ضرب الأول وهريا وما تنتهي هوش كنت بعدين وحينا برانا سومال اللي هوش ذي الاسمه وضنه dadka oo walaalo gacmaha qabsada inagoo qadiyadeeda u dhawaadaya tayada haday qof waliba dhibaatada qaba isaga oo qaranka oo maraytiisa ayaa inoo balana aad iyo aad u mahadsantahay. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.